haatan waxaa si toos ah khadka telefoonka ugu jira garaad jaamac garaad cali garaadka guud ee isimada deegaanka Khaatumo. Garaad ma maqlaysaa? si Maxamed Cabdi ku maqlaa. waa tahay garaad ku soo dhawow ugu horreyn warbaahinta deegaanka. aad baan idin salaamaya cabdi adiga iyo baxda saxaafadda. waxaan kaloo salaamayaa dhammaan shacab weynaha reer Khaatumo dal iyo dibadda. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. عليكم السلام ورحمة. جراد ugu horeyn bal waxaad nooga warbixisaa waxaa tahay isimka guud ee deegaanka dhawaan waxaa ka dhacay magaalada Garowe shir ay iskugu yimaadeen xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland. heshiiskaasi isim ahaan deegaanada Khaatumo sidee baad u aragtaan? runtii arrin heshiiska ay gaareen xukuumadda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland midna uu matalayay Cabdiweli madaxweynaha maamulka Puntland midna uu matalayay inadeerkii Cabdirashiid Cumar Cabdirashiid oo dowladda federaalka ra'iisul wasaare ka ah. wuxuu ahaa nasiib darro weyn oo Soomaali u soo hoyatay in laba nin oo ilma adeeri ay reero kale xaqooda isa siin karaan oo oran karaan reer hebel xaqii ay dowladda ku lahaayeen iyo magacoodii iyo matalaadoodii waan ku siiyo raalli baan ka ahay. waa nasiib darro. waa arrin Cabdiweli hore u sameeyey oo uu inadeerkii Faroole markuu isagu ra'iisul wasaaraha ka ahaa dowladda federaalka Faroolena madaxweynaha ka ahaa maamulka ay u sameeyeen nimanka ilma adeerka ah Maxamuud Saleebaan. arrin lala yaabaya maaha maxaa yeelay cadaaladda waxba kama yaqaanaan. waa arrin Soomaali ay ku taqaano. hase yeeshee waa wax ka daba imaan doona arrinaanu haddaanu nahay shacabka iyo madaxda Khaatumo aanu aqbalaynana maaha. ilaahay hadduu ku roon yahay waa la isdhici karaayo waa la isboobi karaa. hase yeeshee maamulka Puntland maamul aanu ka tirsannahay, maamul qaybtayada noo qaybinaya, maamul talada iyadu ay ku dhex milan tahay midnaba ma uu aha. haddaanan xildhibaanada iyada annagu aanaan soo qoranin, dalka iyaga iyo deegaanka iyaga aan laga soo qorayn, kuwa annagana matala waxba ku fali mayno. Maxamuud Saleebaan ha ka dhigaan, tag Maxamuud Saleebaan ha ku qoraan, wax allaale iyo waxaanu ku falayno ma ay jirto. ama annaga talada iyada ku imaanaysaa oo annagaa ka tashanayna oo dadka noo gelaya ay noqonayaan dad aanu soo qoranno ama ilaahay hadduu ku roon yahay haddaba ugumay horreyn maray xildhibaanada iyada dhacaan inta ay awoodda u leeyihiin haddaataan waxaan wax ku falayno ama qayb noo gelaya ama Garowe aanu u tegayno ama Puntland aanu uga mid noqonayno ma ay aha. waxa ay kordhinaysaa waxa weeye nac dadka reer Khaatumo iyo dadka Puntland inay ka shaqeeyeen isnac iyo colaad iyo nactooyo ay ku abuurayaan dadka dhexdiisa. ilaahay hadduu ku roon yahay siday ku dambaysana taladu tay ilaahay weeye waanu eegaynaa. waa tahay garaad xagga xukuumadda ma la odhan karaa eedan mas-uuliyaddeeda waxaa leh xukuumadda federaalka Soomaaliya? xukuumadda midkii matalayay waa ra'iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya madaxweynuhu horeeyo gudoomiyaha baarlamaanka uu ku jiro gudoomiyaha maxkamadda dowladda Soomaaliya uu ku jiro mas-uuliyad baa ka saaran. haddii ay ka hadlaan qaladka oo ay wax ka qabtaan oo yiraahdaan xilligan lagu jiro laba
nin oo ilmaadeeray intay wada fadhiistaan inay yidhaahdaan dadka aynu boobno waxaanu aqbali karayna maaha amiistii markaa dembigaa lugaha way kala basheen haddiise ay ka aamusaan sida haddeer muuqata ay ilaahay hadduu kuu roon yahay heshiiskaa sidaa ku aqbalaan waxa weeye waa arrinay wada qabaan waana ku eedoobayaan waa ugu eedoobayaan dadka reer khaatumo waa ugu eedoobayaan soomaali oo dhan waa ugu eedoobayaan mas-uuliyadda ay soomaali u hayaan waa tahay ugu dambayn adigoo jaaniskan ka faa'iidaysanaya dadka reer khaatumo maxaad ugu baaqaysaa inta aanan insha allahu tacaala dadka reer khaatumo aan la hadlin waxaan jecelahay inaan mid ku daro oo meesha waxaa jooga international community-ga international community-gu dadka reer khaatumo ama degaa gobolada soo sanaag iyo cayn indhawaale 20 sano u dambeysay xaqooda way doorsiiyeen dadka reer khaatumo cadowgan haysta dhaqaalaha waxay ka helaan international community-ga ciidanka jooga dalka yaga ee haysta ee isaa waxa dhaqaalaha siiya maamulkooda dhaqaalaha siiya mashaariicda dadka yaga ay ku kala qaybiyaan dhaqaalaha siiya waa international community-ga awalba annagoo ugu qabnay maanta inay makhraati ka noqdaan heshiisna lagu boobayo inay ballan qaadaan fulinta heshiiskaas waxay toos dadka iyaga ugu caddaynaysaa in ayan colaada international community-gu dadka iyaga ay u qabaan ayan ahayn mid iska dhacday ee ay tahay mid ku talagala haddii ay tahay colaad fog oo ku siman gumaystihiina waanu ognahay oo waxaanu leenahay waynu iska warqabnaa hadday tahay mid haddeera iyo siyaasad soomaaliya laga damacsan yahay iyo pressure la leeyahay hal la saaro dadkan si ay meel waadaana niman sidaa u sal fudud ama u madax fudud ama pressure inta soomaaliya laga soo saaro oo madaxda soomaaliya joogta ee liidata lagu khasbo inay dadkan dulmiyaan si ay meel kale u aadaan ama somaliland ama meel kalena taasi wax dhacaya maaha dalkan midnimadiisa isku xidhnaantiisa keli ahaantiisa waa waxaanu gelinay waxa ugu qaalisan ee bini aadam bishiyo awoowayaasha yaa u dhintay dhiigga iyagaa u daafay midnimadiisa annagay waajib naga saaranta marka international community-ga waxaan leeyahay waa idin aragnaaye waxba ha isqalinina si bareera uga soo sabta cadowga iyaga aanu leenahay dadka shacabweynaha reer khaatumana waxaan ku leeyahay xaaladdu meesha ay marayso waad arkaysaa sida keliya ee looga bixi karana waxa weeye waa midnimo waa in dhiig loo huro gobonnimada inta deegaankeenna cid kale ay ka talinayso qayb ka mid ah dhibka wuu sii soconayaa haddiise deegaankeenna aynu xoraysanno nin walba innaga cagaheenna hoostiisa keenayna aynu awoodeenna isugu geyno sidaynu deegaankeenna u xoraysan lahayn dulligana aynu uga bixi lahayn wabillahi tawfiiq aad baad u mahadsantahay